war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxtooyada Somaliland mudane Maxamuud Warsamo Jaamac ayaa lagu uriyay Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay uga mahad celinaysaa dawladda federaalka iyo shacbiga Itoobiya sidii milgaha iyo maamuuska lahayd ee ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo waftiga ballaaran ee uu hogaaminayo oo booqasho rasmi ah ku jooga caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa. dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay soo dhaweynaysaa lana qabta ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed in geeska Afrika noqdo meel nabad ah. dalalka geeska Afrikana iyadoo mid walba la qadarinayo jiritaankooda dhuleed iyo madaxbannaanidooda qarannimo ay iska kaashadaan dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo horumarka mandaqada. war-saxaafadeedka uu soo saaray afhayeenka madaxtooyada Somaliland mudane Maxamuud Warsamo Jaamac ayaa waxa uu ku sheegay shirkii waftiga uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waxa la isku afgartay in arrimaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya lagu xaliyo wada hadal iyo fagaare caalami ah lagana fogaado wax kasta oo keeni kara colaado cusub iyo xasarado hor leh oo ka curta gobolka geeska Afrika gaar ahaan dalalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya oo hore u dhaxmareen colaado lagu hoobtay. war-saxaafadeedka oo sii socday ayaa waxa uu afhayeenku ku sheegay in Jamhuuriyadda Somaliland ay ku asaasantay go'aan shacbi waxaanay tixgelinaysaa ayuu afhayeenku daris wanaaga iyo nabadkooda noolaanshaha wadamada dariska ee geeska Afrika iyo kuwa beesha caalamka, balse wada hadal iyo nabad waarta waxa ay ku imanayaan Soomaaliya oo ka waantooda been abuurka, cadaawada iyo colaadda ay u hayso shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland iyo horumarkooda. war-saxaafadeedkaasi ayaa waxa ku saxeexnaa afhayeenka madaxtooyada Somaliland Maxamuud Warsamo Jaamac.